HTML course sida halka ka aragtaan course-ka cusub ee aynu bilaabi doono waxa la yiraahdaa HTML wuxuu ka hadlaa inta badan waa course ka sheekeeya qaab inta badan wuxuu la xiriiraa habka website-da loo sameeyo, qaababka website-ka loo design gareeyo, loo qaabeeyo, waxyaabahaas inta badan ka sheekeeya. Marka iminka maanta waxaan doonayaa inuu introduction inaan idin siiyo, maalmaha kalena maalmaha dambe ku xigana waxaanu bilaabaynaa casharkii oo si practical ayaan idin tusi doonaa, itusoo taabsiya. laakiin maanta iyaro hordhaca oo theory oo aynu kaga sheekeynayno bal HTML kani muxuu yahay, maxaa loo isticmaalaa, definition-kiisa, qeexitaankiisa, hadduu qaybsamo intuu qaybsamo, taariikhda ciddii soo saartay, ciddii waxyaabahaas oo maanta iyaro hordhaca aynu ka sheekeyn doonaa. Marka course-ku waa course-ka, marka waynu gudagalaynaa casharkii maanta. haddaynu intaa kaga baxno iyaro xasuusnaanaysaa waxa weeye note xasuusnoo baa la yidhi this course kani is a new course, waa course cusub. waxaanu focuska ku saari doonaa saan horeba hadda idinku yidhi theory iyo practical. marka maanta waxaanu qaadan doonaa iyaro theory aan qaadan doonaa oo hordhaca iyaro theory oo hordhaca ayaynu qaadan doonaa. maalinta taa ku xigtana waxaanu isla qaadan doonaa bal practicalkii baynu qaadan doonaa. haddaba introduction-kii bilaabaynaa. maxaad halkaa ku aragtaan introduction to HTML. marka introduction to HTML-ka waxaan kaga hadli doonaa bal HTML-kani muxuu yahay, maxaa HTML waa 4 kelmadood, maxaa loo soo gaabiyey, maxaa looga jeedaa, definition-keeda eegi doonaa. marka si fiican ha loola socdo. hode HTML-ku is a standard markup waan bilownay, waa is a standard markup language for web pages ayaa loo isticmaalaa inta badan. haddaba waxaan su-aasha ugu muhiimsan waxa weeye what is the HTML? HTML-ku waa maxay? intaynaan u gelin bal HTML-ka maxaa loo soo gaabiyaa, HTML-ku muxuu yahay? HTML-ku waa programming language to use, taasoo loo isticmaalo creating web pages, in lagu abuuro website-da iyo waxyaabahaas ayaa lagu abuuraa. website-ka iyo waxyaabahaas ayaa maxay lagu abuuraa. waa yahay website-ka iyo waxyaabahaas lagu abuuraa. HTML stands for, haddaba iminka bal markaynu qeexnay kelmadii ee aynu nidhi HTML-ku muxuu yahay, waxaanu nidhi HTML-ku waa programming language taasoo loo isticmaalo creating web pages. iminka waxaanu eegi doonaa bal HTML-ku muxuu u taagan yahay, maxaa loo soo gaabiyey. waxaan leenahay waxaa loo soo gaabiyey H-ta waxaa loo soo gaabiyey hyper, T-da waxaa loo soo gaabiyey text, M-tana waxaa loo soo gaabiyey markup, L-na waxaa loo soo gaabiyey language. marka hyper text markup language ayaa loo soo gaabiyey. marka waa luuqad loo isticmaalayo in wax lagu design gareeyo web page-da iyo waxyaabahaas ayaa loo isticmaalaa. inta badanna base waxa uu ah sida inoo soo socoto aynu mar dambe ku sheegi doono HTML-kan marka la dhigayo program cusub oo Notepad++ la yiraahdo, kaasaynu ku isticmaali doonaa intaynu casharkan ama course-kan HTML-ka ku guda jirno. inta haddaynu ka baxno HTML describes, HTML-ku wuxuu qeexayaa the structure of web pages ayuu qeexayaa, the structure of web pages ayuu qeexayaa. at the same time HTML-ku wuxuu ka kooban yahay serious elements buu ka kooban yahay. HTML elements wuxuu noo sheegaa browser how to display, wuxuu noo sheegaa sida browseradu ay u muujinayaan. marka browserska waa garanaysaa balbalaya. browser waxa la yiraahdaa waa waxyaabahan inta badan internet-ka loo adeegsado, waa application-o yaryar oo inta badan kuu suuro gelinaya inaad internet-ka booqato oo internet-ka gasho. waxaa ka mid ah Chrome, Google Chrome-kii baa ka mid ah, Internet Explorer-kii baa ka mid ah, kuwaasaa ka mid ah. inta haddaynu ka nimaadno aynu sii socdaa weli casharkiiye aynu eegno bal waxyaabuhu kale ka kooban yahay. HTML elements-ku label pieces of content such as, wuxuu ka kooban yahay oo uu leeyahay this is heading buu ka kooban yahay. qayb heading waxaa la yidhahdaa ciwaankii, ciwaan buu ka kooban yahay, iyo qayb this is a paragraph, iyo qayb paragraph ayuu ka kooban yahay. marka paragraph waxaa looga jeedaa yacni marka aynu hadhow doonayno inaynu samayno website-kii samayno ee abuurno, waxa aynu abuuri doonaa dhexda lagu qoraa paragraph-kii, heading-kii. marka waa wax sida iminka markaynu word-ko kale marka wax lagu qorayo dhexdoo kale waxaa lagu qoraa casharkii baa lagu qoraa sooma, waxyaabihii paragraph-kii sentence-kii baa lagu qoraa sooma, xagga ugu sarreysana waxaa lagu qoraa ciwaankii casharka. marka waxaasi ka kale saas oo kale weeye, qaabkaas oo kale weeye. hadhow baynu si fiican u fahmi doonaa markaynu practical-keeda si fiican u galno.
iminka bal aynu eegno component of html. html muxuu ka kooban yahay? html muxuu ka kooban yahay? html wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha soo socda aynu dib ka sheegi doono. html intaasuu ka kooban yahay. html intaasuu ka kooban yahay. halka ugu sareysa waxaa gelaysaa tag baad furaysaa calaamatu cajaa'ib doctape html dabeetana taagi baad ku xidhan. marka taagga furitaankiisu waxaa looga jeedaa taagga marka la furayo waxa weeye waa in wixii qoraalkii la bilaabo hadhowtana lagu soo xidho. yacni taaggaasi iyo qoraalkaasi wuu dhammaaday weeye ee sentence cusub bilow ka duwankii kaasna halkaasna waa htmlkii headingkii halkaa yani markaa waxaan tilmaamay sheegayaan. waxaani maaha wax la iska qorqorayo oo wax tilmaam sheegaya. oo halkaasoo kale waxaa lagu qorayaa wixii website-ka la xidhiidha ayaa halkaa lagu qorayaa. halkaana wixii website-ka la halkaana waxaa lagu qorayaa headingkii baa lagu qorayaa. headingkaas waxay sheegaysaa ciwaankii ayaa lagu qorayaa. halkaana title-kii waxaani ciwaankani uu lahaa yani bilmasal kale website-kan title-kiisaad ku qoranay. halkaana page title-kii hadhowto haddayna bilmasal kale maxaa halkaa la gelinaya page title-kaas waxaa la gelin karaa oo kale www.google.com oo gelin karnaa www.google.com saasoo kale weeye. halkaana waa headingkii halkaana waa bodigii oo waxaa gelaya paragraphyadii iyo headingkii waxyaabaha hadhowna waan xidhaynaa. marka qaabkaas iyo inahaasuu ka kooban yahay. hadhow baa laga yaabaa inaynu practicalkaynu si fiican ugu fahmi doono waxaas iyo waxyaabaha. intaa markaynu ka nimaadno bal iminka waxaynu gelaynaa example explained of html elements tusaalooyin la xidhiidha bal html-kan taagakiisa tusaale la xidhiidha. kow waxaa ka ah doctape baynu doonaynaa inaynu yaro sharxno. waxaynu iminka hore usoo aragnay baynu yaro sharaxaynaa maxay yihiin doctape html maxaa looga jeedaa. means macnihiisu waxaa weeye document is an html5 document. waa html5kii versionkii ugu dambeeyay html-ka ayaa inta badan loo adeegsadaa ayuu kaas sheegaa. waaye ka labaad waxaa la yidhahdaa html. html-ku muxuu qabtaa? isaguna waxa weeye waa root element of an html page. waa saldhigga meeshuu ka abuurmo ama uu ka socdo html-ka website-kan la abuuray meeshuu ka socdo wey. head maxaa looga jeedaa? taggii oo lagu soo xidhay maxaa looga jeedaa? describing wuxuu qeexayaa to contains waxyaabaha ay ka kooban yihiin meta information about html page. wuxuu sheegayaa waa macluumaad ku saabsan html page-kan yani page html-kan website-ka aad samaysay waxyaaba ku saabsan ayuu headingku sheegaya. marka headingku waa ciwaankii oo ciwaanku waxaan ognahay cashar marka la sameynayo casharkaasi waxa uu ka sheekeynayo iyo wuduucda oo dhan waxaa kuu sheegaya ciwaanka. marka headingkuna waa noocaas kale saas u qaabilsan yahay. waxaanu kaloo eegaynaa title-ka tag. markaa eeg maxaa furan tag baa la furay title taggii baa lagu soo xiray dabeetana. describing waxaa lagu qeexay isagana element specifies a title for what the html page. wuxuu qeexayaa title gaara elementsiyada iyo waxyaabo ka koobaya gaarka. si kale haddaynu dhigno ama si kale aynu sheegno wuxuu kuu muujinayaa which is shown in the browser's title bar or in the page tab. wuxuu kuu sheegayaa habka browsersku kuu muujinaya yani hadhowto barkan title-kan waxaynu ka arki karnaa oo hadhow si fiican inoogu sheegi doona browserka ayaynu hadhow ku eegsan doonaa. marka hadhow markaynu waxaan aynu qornay hadhow marka aynu waxay naga caawinaya inaynu muuqaalkiisi aragno waa browserska google chrome-ka ama kuwaas ay naga caawin doonaa marba kii kuugu jira. body tagna lagu soo xidhay isagna wuxuu qeexayaa the document is body documentigaagii ubuucdii ahaa is a container visible inaad dhammaantood arki karto all such as sida headingkii paragraphkii imageska headlinki tableski linki. yani kaasina wuxuu sheegayaa in dhammaantood taaggaasi uu dhammaantood si fiican u habaysay aad si fiican u arkarto ayuu kaasina muujinayaa. intaa haddaynu intaa kaga nimaadno bal iminka waxaan isla eegi doonaa weli wuu sii socdaaye h1 waxaa loo soo gaabiyey waa heading 1 maadaama headinadu 6 bay u qaybsamaan. dib baynu ka arki doonaa. headingku 6 buu qaybsamaa ciwaanadu 6 bay u qaybsamaan marka la joogo according to the html website-kan la joogo 6 bay u qaybsamaan. marka heading 1 ayaa jira heading 2 heading 3 heading 4 ilaa 6 ay. marka heading 1 ku muxuu qeexaa? explain to large heading ciwaanka guud uu sheegay isagu. ka kale waxaa la yidhaahdaa maxay b
tag b maxaa loo soo gaabiyey b for banka explain to the paragraph loo soo marka waa b waa paragraph kana sentence baa lagu qordaa haddaba html element maxaa la yiraahdaa html element ka hore u soo aragnay maxaa la dhahaa waxay u taagan tahay by start tag bay u taagan tahay start tag waa halka uu shaygu ka abuurmayo marka start tag maxaa la yiraahdaa start tag waxaa la yiraahdaa kelmadda calaamadda ay ah listing calaamadda listing ayaa ah iminka start tag taagan some content-guna waa some content-na waxaa looga jeedaa waa body tag-gii oo noqonaya paragraph-kii heading-kii waxyaabaha end tag-guna waa halka ku dhammaanayo oo ah halka shayga lagu soo xidhayo oo hadhowto iidaa laga horumarinayo qaalka tag name baa iyadana jira oo hadhowna aynu si fiican arki doono waxaa kaloo iyadana muhiima the html element is very things from the start tag and the end tag aynu hadda soo aragnay waxaa iyadana muhiima inta hore waxay sheegaysaa uun labadan ay sheegaysaa marka hadhowto markaynu qorayno kala qaabkan baa loo qorayaa waa qaabkii loo qorayay ayaynu sheegaynaa hadda la kala xadhays hadhow markaynu ku qori doono waxaan leenahay tag heading 1 tag oo lagu soo xidhay deetana halka body baa noqonaysaa waa body tag waxa gelaya my first heading deetana end tag-guna wuxuu noqonayaa tag /heading 1 tag oo lagu soo xidhay waa ciwaankii la geliyay marka halka ka kalena waa paragraph-kii oo isagana saas kale loo geliyay halkan baa iyaduna muhiima haddaba oo iyaduna muhiima oo inaan si fiican u eegnaa halkan start tag element-igi wuxuu ku kala sheegayaa maxayba heading maxayba paragraph intaas ku kala qeexaya waxay kala yihiin heading 1 tag-gaas element tag waa taha waa my first heading iminka wani ka sheekeynayay hore u nili marka element tag muxuu noqonayaa my first heading my first paragraph magaca kale element tag la yiraahdo waa body tag-gii end tag-guna waa ka si fiican u aragtaan inta haddaynu halkaa kaga baxno bal iminka waxaynu gelaynaa html history taariikhda html-kan uu soo maray html history of html history ayaynu geli doonaa taariikhdiisii yaa aasaasay html-kan goormaa la aasaasay goormay soo kala baxeen html-yadu way fara badan yihiin html-kan waxaa aasaasay nin la yidhaahdo Sertim Berners-Lee baa aasaasay nin la yidhaahdo wuxuu aasaasay 1991kii laakiin waxaa la soo daayay officially ayaa la soo daayay 1995 waxaa soo baxay html la yidhaahdo 2.0 marka waa versions kale html 4.0 na wuxuu soo baxay 1999kii laakiin iminka waxaa la isticmaalaa kan la isticmaalaa iminka laakiin waxa weeye html5 halkaad ka aragtaan ayaa ah versionskii ugu dambeeyay oo ah versions 5 waa versionskii ugu dambeeya iminka aynu isticmaalayno kan la isticmaalaa nawaka kuwa hore iyagu waxay ahaayeen bariyii hore waqtiyadii hore qadiimiga ayaa la isticmaali jiray kuwa hore laakiin qarnigan cusub ee qarnigan 12aad ay maanta joogno iyo qarnigii 20aad meelahaaba waxa la isticmaali jiray versions 5 oo ah html5 ninkaasana soo saaray la yiraahdo T Berners-Lee waxaana sidoo kale developed by WW ay horumari kareen dadna World Wide Web Consortium ayaa ah website-kaas ayuuna ninkaas sidoo kale sameeyay oo horumariyay asxaabay bal waxaan eegnaa tusaalooyin ku saabsan HTML versions-kan waxa ka ah HTML 1991 marka HTML-kan waxa sheegayaan waa HTML-kii iyo goortii la soo saaray waa website-kii ugu horeeyay iyo goortii la soo saaray weey marka HTML-kii ugu horeeyay goorma la soo saaray sanadkii 1991 2.0 waxaa la soo saaray 1995 and at the same time HTML 3.0 1997 4.0 1999 saasoo kale ayaa loo soo saaray maxaa loo baahan yahay hadaba what requirement when developing website using HTML maxaynu u baahanahay marka aynu adeegsanayno waa qodob aad u muhiim ah qodobkaas si fiican loo socdo maxaynu u baahanahay marka aynu ku guda jirno HTML-kan inaynu design garayno hawshiisa bilowno maxaa loo baahan yahay text editor baa loo baahan yahay text editor-ka waxaa looga jeedaa waa notepad ++kan aynu u baahanahay aan horey ku sheegay iyo web browser oo ah browseradii Google Chrome-kii text editor maxaa la yiraahdaa marka ugu horeysa balaynu qeexno text editor was application software which all HTML codes are written in order to develop a website
waa is application software waxa la yidhahdaa waa wax aad internetka kala soo degi karto. waxaa jirta softwareada qaar baa jira aan internetka lagala soo degi karo oo waqti leh, waqtina kaa dhamaanaya, iyo qaar baa jirta aan kaa dhamaanahayn ee original oo computerkaaga la socda. marka labadaasay ku kala duwan application software iyo system software. marka softwareka la kala qaybinayo laba loo qaybiyaa. waxaa jirta application software qaar la yiraahdo iyo system software. marka system softwareka waxay noqdaan kuwa computerkaaga ama mobile haddaad leedahay la socda ee original lagu soo dejiyo ee weligood aan kaa dhacayn. maxaa ka mid ah kuwa system softwareka? maxaa ka mid ah system softwareka? waxaa ka mid ah photoskii baa ka mid ah, photos applicationkii baa ka mid ah. at the same time waxaa ka mid noqon karaa waxaa ka mid noqon karaa videoskii baa ka mid ah, videos applicationkii ama tabka yar baa ka mid noqon karaa, iyo qaar kaloo badan. waa systemkii oo xabiil lagu soo marka computerka la joogana system softwareki maxaa ka mid noqonaya? recycle binkii baa noqonaya marka computerka la joogo. kaasi kii hore mobilkii buu ahaa iyo mobiladii iyo iPhoneskii. laakiin marka computerka la joogo ama laptopka maxaa noqonaya system software? tusaale ahaan recycle bin application, recycle binka ayaa noqonaya. application softwarekuna maxaa ka mid noqonaya? application waxaa ka mid ah facebookii, whatsappkii, kuwaasaa noqonaya, iyo browserskii, kuwaasaa noqonaya. marka maxay application software? marka application software waxba yaan hadal isku daalin. application software waxaa la yiraahdaa waa applicationo waqti kaa dhamaanaya, applicationada waqti cayiman leh ee waqti ku dhamaada ayaa la yiraahdaa application software. waxaan si fiican u fahanteen. marka text editor waa maxay? waa application software kuwaas oo aad codeskaagii ku qorayso si aad ugu horumariso oo aad ugu qaabayso oo u design garayso to develop a website. way tusaalihiisana waa kan text editorka. tusaalihiisa maxaa ka mid ah? for example notepad++ iyo notepad and etc iyo wixii lamid ah. bal aynu eegno ka kalena web browser baynu u baahannahay. qodobka labaad aynu u baahannahay marka aynu HTML-ka design garaynayno maxaa ka mid ah? web browsers oo Google Chrome-ki waxaa ka mid yihiin. iyagana marka qeexitaankiisa eegaynaa. isagana waxaa la yiraahdaa is application software which is all used for kana waxaanu eegaynaa hab inaan wixii ka akhrino. marka waa kaynu hadhowto isticmaalayno ee isagana la dhahaa. tusaalihiisana waxaa ka mid ah for example Google Chrome-ki baa ka mid ah, Microsoft Edge-ki baa ka mid ah, iyo Safari-gi iyo Internet Explorer-ki. IE-da waxaan soo gaabiyay Internet Explorer aynu soo gaabiyay waa nooc ka mid ah browserka. ugu dambeyn in yaroo xusuusina ayaan idin sheegi doonaa oo ah note xasuusnow. the web browsersku not be display kuma soo bandhigayo the HTML tags, laakiin muxuu ku soo bandhigayaa browserku in waxa la muuqaal ahaan inaad waxaan akhri karto oo hadhow ka akhri karto ay ku soo bandhigayaa. marka intaas ayuu maanta theory-geennii iyo qaybteennii hordhaca ahayd ee course-kan aynu bilaabi doonaa uu ku eegyahay. waxaan leeyahay si fiican inaad concept fiican aad ka hesheen waxa la yiraahdo HTML website. marka course-kan waa course aad u muhiim ah. wuxuu ku barayaa hababka inta badan website-ada loo sameeyo. waa course aad u wanaagsan. intaa wixii ka dambeeyana casharadeenii iyo taxanaha ayaynu si fiican u bilaabi doonaa. marka maanta halkaa inuu joogo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.